أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إيما ديار سنين لايف إن سoo galo qorshahayguna ma ahayn hawlo kale iyo business baan ku jiray, laakiin ciyaadan billaah qofka aad taqaaneen ee dumarka ahaa marna diinta waa ka baxay lahayd, marna waa soo galay lahayd, dadkuna ay ugu cudur daarayeen in ay waalan tahay, laakiin ay la socdeen 100,000 wax ka badan oo ruux. dabcan inay waalan yihiin ayaguna aan u malaynayo ayaa aakhirkii hadda wiiga lasoo dhaafay waxay si cad u caddaysatay in ay tahay qof diinta ka baxay. ha ahaatedeeda in badan oo dadka Soomaaliyeed ah kuma kadsoonayn oo dhibna ma lahayn, arrintaasi way kusoo noqonaysay, waxaana loo qaatay wixii normalka ay sameynaysa. laakiin mar walba carabkeeda waxay ka ilaashan jirtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa ay hadda kusoo dhiirato xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal, ayadoo qofka uu ilaah subxaanahu wa tacaala ku gaaloobay oo uu bannaankaas istaagay ayaysan ahayn in uu ilaah iyo rasuulkiisa caayo. asagoo qofka diinta waan ka baxay yiri ayuu bannaankaas joogaa oo uusan qof militanti ah ama dagaal usoo diyaargaroobay uusan noqonin. laakiin markuu qofka ilaah iyo rasuulkiisa uu dagaal ku soo qaado, waxaa muhiim ah qofka qiirada leh diintiisa qiirada u leh inuu jawaab ka yidhaahdo. naftiisa mid u argoosanaya ma ihi. wathuma wallaahi waadna igu aragteen in badan oo aad ila socoteen. 2 sano wax ka badan bay aniga ay igu dhuraysay faamilkayga, qoyskayga, maxaan ku ihahdaa, waxaan ahay, meeshan ka soo jeedo, wax walba wax lahayd. waxaasna waxba kama aan dhiganayn. wixii habaar ay igu daldalaysay wax walbana waxaan u arkayay inay duca yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala, in aan shaytaan kaga xanaajiyey baan isu arkayay dartii. laakiin maanta arrintu way ka duwan tahay. qofka markuu adiga shaqsigaaga kuga caayo iyo markuu xabiibka caayo way kala duwan tahay. in aadan adigu nafsadaada u xanaaqin waa muhiim, laakiin waxaa ku hortaalla qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun. war hooy, kuwa munaafiqiintaabaa la sheegayaa, waxay yidhahdeen jidkaanu ku goynaynin rasuulka ilaah, adiga maanan ku caayaynin, nagama haynaan ilaahay rasuulkiisoo ku cayno. laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa kusoo degatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi, ma waxaad ku jeesjeesaysaan ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ayaad jidka ku maraysay inaad ku jeesjeesayseen? laa tactadiruu qad kafartum, waad gaalowdeen, cudurdaarna ma lihidin. allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna barayaa, qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum. ilaahay inta soo taxo wax alle waxaan qoys leenahay ayuu wuxuu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa aad ka jeceshihiin. waxaa muhiim ah qofka muslimka ah in uu u leeyahay qiiro lagama maarmaana diintiisa iyo waxa uu aaminsan yahay waa lagama maarmaan. ikhwaani fillah, arrinkani ma aha arrin aan iskaga qiiraysanahay bilaash iyo nafsadayda wax aniga ku saabsan ma aha. waxaan jeclahay walaalaha diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala jecelna inay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam u gargaaraan. waxa keliya ay samayn karaan ma aha in qofka lagu samaynayo. waxa ay samayn karaan waxa weeye, haddaad shalayto ama subscriber u ahayd ama aad faafinaysay, inaad maanta ogaato in ay tahay qof bannaanka istaaga keliya ma aha, qof diinta ilaahay dagaal kula jiro, qof rasuulka sala allahu calayhi wasallam caayiyo. iskama lihi waxa weeye, mana jecli ereyga ugu dambeeyo oo ay rasuulka sal ly slam leedahay inaan idin maqashiiyo, maxaa yeeley aad baad caloolxumo uga qaadi doontaa. waxaanse jeclahay biidn illaahi tacaala in aad kilibka noocaanihii hadduu kusoo maran aad og tahay, hadalkana aan qaybta aan ka goynaya xanuun badan tahay. insha allahu tacaala waxaan jeclahay marka hore inaan dhegeysiiyo, kadibna telefoonka waan idiin furi doonaa. kusoo dhawaada awalan.
diinta ninka ii baray baa wasakh ahaa kalab talay buu ahaa kii diinta aniga ka ii baray soo kii furay buu ahaa saa yaa maxaa u kuusoo cunug yaroo lagu yidhi diinta bar markaan arki jiray dadka diinta ka baxay sida Muna Walter oo kale gabadhaas geesiyada ee kristiyaanada ee qaaliga ee quruxda badan idinkaa waxaa gaarsiiseen in aad mataqaanaayo inay idcaydo idinkaa gaarsiiyey aniga sidii baa igu wada nebi baana idinku naxayn diinna waa idinku bannaxaayo qofka xeebaha iga soo galan waxaa weeye oo diin la soo doonteen dintaada wasbaan ku leeyahay so runta markaan idiin sheego diin aa haysatiin ma lahan haddii diintiinu taas ahayd aan ku jira gumaysiga ahaydna yaa diin wanaagsan ma haysataan nebigiinuna kii caruuraha walaalayaal intaa dambe waan idinka joojiyey dhagahana uma fiicno waana ka xumahay in nebigiina ay wax yaroo xarafka ah xataa iga raacdo laakiin waxaan ugu talagalay inaad evidence ka dhigataan oo aad maqashaan xaqiiqada meesha taallana aysan ahayn wax muran la gelin karo halka ay gaarsiisan tahay ma aha qof waa waalan yahay keliya looga talageli karo maaha waa qof waalan asii ku jira dagaal hadduu yahay qofka waalan waa in loola tacaamulo meeshii ugu maxaan ku rahdaay habboonayd waa inaan la daba kicin waxaan naqaanaa dadka waalan inaan u sacabtunno oo aan waqti badan maxaan ku rahaa gelino waa inaan sii waalno ka sii waalno in la daba socdo oo ay zero inta ka bilowdo muddo sanad ka yar ay 120,000 oo subscribers ay haysato maxay ka dhigan tahay yacni maxay ka dhigan tahay bilaahi calayka haddii every day ay qof ay caayayso iyo muslim ay jaaifeynayso iyo dhibaato ay nafteeda ku samaynayso mid ummad kale ku samaynayso kaliya intay ka hadlayso aad subscriber u tahay mar kasta ay soo gashan aad daawato ka waran waduma wallaahi lama socon mana ogi meelay wax u marayaan war uma hayn laakiin maanta ayaan ka dul dhacay arrinta tan murugada leh waxa aad iyo aad wax marka looga xumaada ah in ay boqolaal ma aha tobanaan 100,000 ka badan oo qof in ay ku xiran yihiin oo ay la socdaan waxay raalli lahow insha allah walaalkii burhaan insha allahu tacaala waan ku soo laaban doonaa taleefonkaan rabaa inaad inin furo waad u baahan tihiin in aad maxaan ku rahdaa opinionkiina ama aad ra'yigiina sii daysaan ma ahi qof idinku celinayo xor baad u tahay ra'yigaaga soo wac insha allah nambarka 612-406-2897 whatsappkaad ka soo wici kartaa caadina waad ii soo wici kartaa waa wax aan wada leenahay waa wax laga xanuunsado anigu ujeedkaygu ma aha wax kale ilaa qofka kan hala ogaado oo ha laga haro weeye warkaygu ma aha waxaan iyada gooni u cadaaweynaya danna aan ka leeyahay 3 sano ku dhawaad ay aflagaadeynaysana danna kama yeelan hadalna kama soo qorin xitaa go-aanka maalintan ka qaatay kadib markii aan la fariistay aan ogaaday qofka ay tahayna go-aan baan ka qaatay inaan waxba dambe u celin laakiin dadka ku raran 24 saac la socdo oo muxuu ahay har iyo habeen waxay soo gelisay subscribers ku ah oo soo raaco oo followers ku ah ade really ma iyadoo kala mi waalan yihiin madiinta ilaahay maxaan ku radaa in loo gafay raali ka yihiin ma every day inay xan iyo maxaan ku radaa xumaan dhageystaan bi diyaar u yihiin ma garanayo opinionkaagu waa muhiim insha Allah taala soo wac nambarka kan Allah idin xifdiyo dhammaantiin qofka u horeeyo insha Allah magaalada Mansoor gudaheeda ka soo wacayo السلام عليكم ورحمة الله. الو السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله walaalkay saatahay. الحمد لله xaaladda aad iyo aad ku soco walaalkay dad kale insha Allah ka sugay nambarka. waniyo maantaan arkay horta arrintan ma fahanteen si fiican qoftaan weligeed way dhihi jirtay diintan ka baxay diintan soo laabtay iyo saa way samayn jirtay ma fahanteen صح dambiyada dhowr jeer hore ugu arkay laakiin arrinta aad u xanuun badan baa waxay tahay maanta meeshii ugu dambeysay inay gaarsiisay oo ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam abla gaarsiis ma fahanteen xaqiiq weeye ma aaminsanida meel ka shishaysa oo ka fog inay jirto rasuulka adcay absolutely marka meeshii ugu dambeysay bay gaarsiisay taariikh subscribe ma aha laakiin waan arkay subscribe badan way leedahay laakiin Soomaalida iyo inta muslimka ka waxa leeyahay kala noqdo subscribe iyo inta faa'iido u haysan lacag waxay ku heshaa waa diinayga rasuulka sallallahu alayhi wasallam
صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جزاك الله خيرا ولعلك مقعاقة إن شاء الله يمشهد كسو هذا